ayahaga taliyaan axadiku ugu marayaan arligaygo inanku adeegoon cadowka ilaashaan ayahaga taliyaan axadiku ugu marayaan arligaygo midkasaka ordeyka abala dhacey addoonsiga la jira sow uma oga hunta sow uma oga midkasaka ordeyka abala dhacey addoonsiga la jira ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله واسع قاشد والله وادي متركز ما شاء الله غدو هذا ما صدق سو ما اوغا اما الى كل اذا سو ما اوغا اوغا هرينا تهي سو ما اوغا دحلو والى تهي سو ما اوغا اسغو الى كل اذا سو ما اوغا أبوغا هرينا تهي سو ما أوغا دحلو وإلى تهي سو ما أوغا إساقو إنو كلية سو ما أوغا وحسين كؤور سماتا اللي غيرو إربكا ما نيدي كارو أقو إياري ولشادا نكويدو ركبا أقلكن كهيليو وذوكيو أبيهيو علولك إيا ركبا أقلكن كهيليو حتى انت بدأدون أدشو إيتي مهدنا كليسو أمبينايي إلكي كويلو عليغيغو حتى انت بدأدو halkaas u gelinaya uu ku dhacaya jikada uu ku dhacaya cabitaanka waa واجبكاga oofshaan axadiku ugu maraya arligaygo inanku ogolahadoon adduunyada intaan jiro waajibkaaga oofshaan axadiku ugu maraya arligaygo midkasaka ordeyka abala dhacey addoonsiga la jira sow uma ogo ku uursamata arligaygo إربكا مريدي كارو أقو إياري ولشادنا كويدو
yararkaba aqalkan ka helayo udubkiyo adigiyo allolka yararkaba aqalkan ka helayo haddaan dibadda aadoon adashu iitimaadana kilaysoo ambinayay iilkay ku yiilo aligaygo haddaan dibadda aadoon adashu iitimaadana kilaysoo ambinayay iilkay ku yiilo aligaygo inanku ogolahadoon adduunyada intaan jiro waajibkaaga oobshaan axadiku ugu maraya arligaygo inanku ogolahadoon adduunyada intaan jiro waajibkaaga oobshaan axadiku ugu maraya arligaygo midkasta kaa ortay ka abala dhacay addoonsiga la jira sow uma oga horta sow uma oga midkasta kaa ortay ka abala dhacay addoonsiga la jira sow uma oga horta sow uma oga anfacaagi inuu cunay sow uma oga biyaha ku uunbaxay sow uma oga ama inaad kulle idahay sow uma anfacaagi inuu cunay sow uma oga biyaha ku uunbaxay sow uma oga ama inaad kulle idahay sow uma oga abloga harina tahay sow uma oga dhaxalawowa ina tahay sow uma oga isagu inuu kulle iyahay sow uma oga abloga harina tahay sow uma oga dhaxalawowa ina tahay sow uma oga isagu inuu kulle iyahay sow uma oga waxase ku ursamaadka arligaygo irbadka ma ridi karo aqoon yari bulshadana kuweedo deegan keenan taala khayraad ka dafteen dhammaan dalkeenna barwaaqadiisa nimcada deegan keenan taala khayraad ka dafteen dhammaan manta ku duugan ciida dalaga beeraha fafane dixdii harawiyo sidii manta ku duugan ciida dalaga beeraha fafane dixdii harawiyo sidii dararta sharareed bulaale weelkuu ka
durduurta geelu carrada dooliyo wardheera dobirtiya yicita bixisaa dadyow kale nala wadaagin dalsanka qoraxa shidaalka dararta sharareedu bulaale ceelku ka durduurta geelu carrada dooliyo wardheera dobirtiya yicita bixisaa dadyow kale nala wadaagin dalsanka qoraxa shidaalka ugu horeysa salaamaya hoggaanka dhaqanka madaxweyne dowladda puntland gudoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada golaha baarlamaanka dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee kasoo qayb gashay ganacsatada maalgashadayaasha bahda saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan caawa isugu nimid munaasabadan ee lagu daahfurayo loogu awanqalayo hoteelka wiilaaho garanta hotel oo ah hoteelkii ugu casrisanaa ee puntland laga furo waxa uu ka kooban yahay 47 qol waxa uu leeyahay biyo sifaysan oo macaan waxa uu leeyahay baakin weyn oo qaadi kara ilaa 100 gaari waxa uu leeyahay wiish waxaan marka ugu horeysa u mahad celinaynaa ganacsadihii Soomaaliyeed ee maalgashaday dhulka maalgeliyay si uu faa'iido uga helo dhulka horumariyay dhulka dhisay dadkana tusay in ay tahay puntland meel maal badan la gelin karo dhaqaale badanna laga soo saari karo axmed cilmi shido waxaan leenahay maalka allah kuu barakeeyo inta kalena waxaan leenahay waa in lagu daydaa dhul shisheeye dheef male habeen dhixitin mooye dadka dhulka shisheeye dhisanaya ee maal gashanayo ogaada dhulkaa dad baa iska leh dhulkaanaad leedihiin dhulkaanan laydinka qabsanayn dhulkaanan laydinka dhacayn faa'iidooyinka maalgashigu uu leeyahay dowladdu canshuur bay ka qaadanaysaa dadka ehelkaa waxa weeyaan waa daawanayaan oo waa dugsanayaan qaaraan baa laga qaadayaa saadaha laga qaadayaa waa shaqo abuur oo dad badan ayuu u shaqo abuurayaa munaasabadeenna maadaama aynu nahay dad islaama waxaynu ku furan doonaa kelimadii diiniga ahayd waxaana inoo akhriyi doonaa inoona soo jeedin doona injineer suldaan sheekh cabdiqani qorane kusoo dhawow أجمعين أما بعد مدحوينك دولة puntland gudoomiyaha baarlamaanka madaxda dhaqanka ganacsatada wasiirada golaha wasiirada xubnaha baarlamaanka ee fadhiya agaasimayaasha dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee kulankan isugu timid dhammaan waxaan ugu salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh سلام كبير الله ومعاد سكاله سبحانه وتعالى نقول قال يستي نعمة الإسلام من الله روتي ونعمة هذه أدوية وبدن وقارئة وحول الباء الله يستوي لسولك هي هدين البابا لقنا وحنا ترتبي كري وحسكم الله سيستاهل كرهه يلاتي على الجرين نعمة أيها إلهي وين السيء سبحانه وتعالى ومدة سيرته من قريسة adduunka inuu noqdo adduun wanaagsan aakhirada laga helo badbaado sidaa darteed qofka muslimka ah inta adduunka uu joogo ikhtiyaar aan lahayn islaamnimadaas iyo wax uga wanaagsan ilaahay ma siinin subxaanahu wa tacaala waxaan loo baahan yahay islaamnimadaas in lagu toosnaado lagu deganaado amarka ilaahay iyo kan rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaana laga hormariyo islaamnimadu waa manhajkii iyo dastuurkii loogu talagalay adduunka in lagu maamulo inta adduunka ka harsan waa risaaladii ugu dambeysay iyo fariintii aakhirka ahayd ee ilaahay u soo diray basharka iyo jinka u soo diray fariintaa iyo risaaladaas waxay xambaarsan tahay nolol waxay xambaarsan tahay nuur waxay xambaarsan tahay hanuun iyo hidaayo saas darteed ku toosnaanteeda weeye midda ay ku jirto badbaadada ku toosnaanteeda weeye midda ay ku jirto in ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku jeclaado kuna soo dhawaysto uuna ku gaarsiiyo mustawo ka sarreeya malaa'igta kalleexashadeedana waxaa lagu mutaystaa
in waxa weeye jaal lala noqdo inta ilaahay uu nacay aakhiro marka la tagana abaalmar aad iyo aad u daran lagala kulmo saa darteed ilaahay isagoo noo soo koobaya waxa uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dukhuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu khutuwaati shaytaan inahu lakum caduwun mubiin kuwii iimaanka lahaayo islaamnimada wadagala maamaayaha alla ka fogaanshaha ah wanuunan hamanwada islaamo ah waydulka bax garanaysaa ama weyno ama waran ilaahay wuxuu ku leeyay islaamka soo radin haddaanan wada islaamin hadda jannada wada gala maysa garanaysaa haddaanan iswada dhiibin hadda waxa weeye ilaahay casumaadiisa firitooda heli maysa dad la soo xushada meeshaa jooga lagu karaameeyey lagu xurmeeyey inay munaasabada camal fadhiyaan waxaan u malaynayaa munaasabada ka wey oo qofku uu jeclaysan doono inuu golo kan ka wanaagsan uu fadhiyo waa midka aanan waxba laga bedeli karin natiijada kaa horeysa oo ah wixii ay adduunka aad ku garabsatay sidaa darteed waxaynu u baahan nahay inta adduunka aan joogno ama madax noqo ama loo madax noqo inaad naftaada iyo noloshaada iyo jiritaankaada aad ka wada iibisid rabbilcidi subxaanahu watacaala isu wadid shacaarkaaga halkudhegaaga dusha waxa kuu saaran ay noqdaan ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiina laa shariika lah intaasoo dhan salaadayda gowracayda cibaadadayda noloshayda geeridayda rabbi baa iskale subxaanahu watacaala waxaa jira khalad laga fahamsan yahay reer magaalnimada iyo islaamnimada isdiidaya taro maya soo diidaan islaamnimada iyadaa xadaarad laga soo gaaray xadaaradan islaamnimo aanan ku salaysnayna waa daabinimo waa xoolanimo kasii liitay noqonaysaa waana waxaan hadda haysta xadaaraadka waaweyn ee ku faana adduunka inay ka horreeyaan ayib waxaynu u baahan nahay marka nolosheenna oo dhan inaynu islaamayno oo islaamkaas u hago dowladnimada iyo islaamnimadu sidaas si lamid ah wax isdiidaya ma aha adigoo muslim ah oo adigoo hoggaansan oo sharcigiisii tabaqaya inaad ku dowladayso alla aad ku maamusho yani waxa weeye sidii uu rabay waxaad ka helaysaa waxaadan hesheen haddii talabadaa cagsigeeda aad qaadato dariiqiisa saas darteed walaalayaal dardaarankeenu waa aayadda qur-aanku ilaahay uu leeyahay islaamnimada hal la wada galo ibnu jariirna waxa uu ku fasiray ibnu cabbaas iyo ay ka soo warinayaan islaamnimada qaybnaha qaadanaya sidii yuhuud oo kale qaybnaha ka teginaya xaalad walba iyo meel walba iyo mar walba oo aad joogtaan dad muslimiin oo u nool sida ilaahay uu rabo idinku addoonsaday uuna doonayo inuu ku darajeeya adduunya aakhirada u noolaho intaa waa wacdigii waadi aad iyo aad iyo aad baan u bogaadinayaa ganacsatadii reer puntlandka ahayd oo axmed cilmi shido iyo maalgashayaal kale ee shirkada kula ahaa ee fikradda tan hindisay ka fikiray inay dhab noqoto ka shaqeeyey ee fuliyey ee caawa munaasabadeeda aynu u fadhino alla subxaana watacaala maalka idin barakeeyo ganacsi barakaysan rabbi ha idinka dhigo mid nagu guulaysan rabbi ha ka dhigo dadka noocaasoo ganacsatada ah ee waddanka maal gashanaya ummadda wax walba ugu fadhiyaan waayo adeegyada noocaasay noloshu ka bilaabataa waddanka xasilooni darrida dadka fara badan ay uga carareen ka sokow waxyaabaha looga cararay qayb waxaa ka ah horumar la-aanta sidaa darteed hotelkan oo kale grand hotel wuxuu qayb ka qaadanayaa dadku inay helaan weliba khaasatan markii dhinaca nabaalka la fiiriyo wuxuu kalsoonay ay ka dhigtaan ay yidhaahdaan meeshaasba dalkeenna ay ku taallaa oo uma qasbanin inaan isku soo sawirno guri quluqsan in maxaa la yidhahda ishag dibadda aynu aadno sidaas darteed shaqo fiican bay qabteen dadka kale ee walaalaha ah ee waddamada kale maal gashanayana waxaan u baaqaynaa saasoo kale talabadaas inay qaadaan waxaan sidaas oo kale mahadnaq ballaaran iyo bogaadin usoo jeedinayaa saaxiibkii injineer cabdulqaadir iyo kombaniga mubaarak group of companies iyo shaqada ay qabteen runtii aad iyo aad bay qaybo u leedahay oo kama dhacda maalgashiga in aqoonta dibadda taalo lasoo raro oo dalka lagu tadbiiqiyo oo dhismayaasha adduunka ka jiray iyo standardka wax lagu dhisto inta lasoo guuriyey aanan lagu taagnaanin sidii waagii hore la yeeli jiray ee waxa weeye tadwiir lagu sameeyo nolosha iyo waxa weeye ilbaxnimada iyo dhismaha iyo wax alla wixii horumar laga gaari karahayo o dhan adigana waxa weeye ku bilaabinaya waa uga mahadnaqayaa waxaan u malaynayaa ka injineer ahaan marka aan fuliyo
hadduusan ahayn guriga ugu quruxda badan guryaha ugu quruxda badan buu tan hadda ku jira marka hamada idinkana dhalleeyahay dhammaantiin maasintii wajazaakumullahu khayr injineer shirkadda mubaarak oo ah shirkaddii hoteelkan quruxda badan inoo dhistay lana oran karo waa shirkadaha dhulka guryaha ugu bilicsan puntland dhistay injineer cabdulqaadir si uu warbixin kooban inuu ka siiyo hoteelkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرتدى شرف قله وسلامتهم مضح قضية مليارو مالكش ريال رجع بيزنس كا iyo tijaarada ku jira dhammaan dadka martida sharafta leh aad baan idin salaamayaa haddii aan ku soo boodo hawsha meeshan gurigan ama hoteelkan laga qabtay Grand Hotel si kooban haddaan uga hadlo wuxuu ka kooban yahay area uu ku fadhiyaa 1 hectare taqriiban weeye yacni 1 hectare oo saddex wado ay ka mado saddexda jiho ka mado yacni security-ga iyo accessibility-ga yacni waa meel cajiib ku ah oo ku muuqata dhabar kalena hotel kale ku haya oo dhanka security-ga يعني wuxuu noqonayaa number 1 isaga lagu daray waxa lagu daray haddana CCTV camera oo kaamiratul muraqaba oo iyagana cadasaadka laga eegayo gudaha dibadda kulli ay ku haystaan control roomska lagu ururin karo oo xogta dhan laga heli karo wixii dhaqdhaqaaqa ama wixii dhaca iyo sidoo u dhacaanba waxyaabaha khawaasaadka khaaska u ah oo special ka ah waxa kamid ah mas'ad buu leeyahay macni elevator buu leeyahay elevatorkaas oo casri ah runtii wishkaas oo qaadi kara masalan xamuul iyo passengerba dadka masalan dhalinyarada cuslaatay ama dadka waaweyn da'da ama dadka xanuunsan accessibility u yeelaya inay raacaan stairskina waa jiraan jaranjaradii la fuuli lahaana iyana way jiraa oo caadi baa loogu tegi karaa waa sida la sheegay gurigu wuxuu ka kooban yahay dhismaha hoteelku 3 category 47 category oo kala waaweyn size-koodu yani mid walbana musqulaha ay gudaha ku leeyihiin wuxuu ku leeyahay TV-gii anteenadii muxuu ahaa geeda la yiraahdo muxuu ahaa networking-kii telefoonkiisii iyo intaba uu ku leeyahay waxa kale oo khaas u ah oo hoteelku leeyahay distillation system waterka biyaha lagu nadiifiyo oo biyo macaan ka dhigaya yani biyaha hoteelka lagu isticmaalayo dhan waxa weeye waa system waxay ka imanayaan biyaha la macaaniyey oo laga dhigay biyo macaan beeraha maaha meelaha beeraha maaha oo biyaha dhanaan caadiga isticmaalaya ma inta kaleeto haddii ay tahay allah mustacaan hadday tahay kushiinka ama musqulaha ama qubayska meel kastoo ka mid ah cafeteriada biyaheedu waa biyo macaan waxyaabaha khawaasaadka uu leeyahay guriga waxaa ka mid ah allah mustacaan waxaa ka mid ah CCTV camera waa idin sheegay waxaan idin sheegay fireka oo fire system lagu dabin karo wixii haddii ay ka dhacdo wax dabi ka dhacaanin istawanaadkii gaaska oo lagu damin lahaa intaba waa laga helayaa meeryooyinka loo designate gareeyey wuxuu ku yahay oo khaas u ah waxyaabaha collidingka qurxiya eventually u aragtay mandarka koowaad oo designka waxaa aad u soo saaraya waa collidingka iyo galaaska hore waa aluminium composite colliding oo wuxuu soo saarayaa mandarka aan soo dooranay weliba nooca ugu wanaagsanaa aan kalarkiisu isbedelayn muddo dheer yani qaarkood waxaa dhici karta inay muddo markay joogaan in ay isbedelaanin oo ay ama fiiqmaaniin ama isbedelaanin waa noocii ugu qaalisanaa quruxdiisana soo saaraya kalar fiican iyo design fiicanna waa u dooranay khawaasaadka kale oo hoteelku leeyahay waxaa ka mid ah yani waxaa ka mid ah allah mustacaan in uu leeyahay kushiinkii casri ah kushiin casri ah oo ay ku jiraanin machinery-gii ugu dameeyey oo wax lagu kariyo ama wax lagu hagaajiyo ay ku jiraaneen marka waxaa muuqata in uu leeyahay hoolkan shirarka fadhidaan iyo hoolal kale oo yaryar oo business meetings lagu qabsan karo kana waad aragtaan yani about 300 plus baa fadhiisan kara oo uusan tiir keliya lahayn oo aan maxba qoorta iyo ku jirin masalan parkingkii oo xusay walaalkay uu xusay tigay
baarkinkaasoo gadaal horay accessibility-ga meel kastaa kaga imanaysaa dariiqa yani ma jiro wax isku ceegsamaya ama conjection ka imanaya traffiga inay iskaga hor yimaadaan dadka iyo baabuurtu marka waxaan ku faraxsannahay in uu well designed yahay marka laga eego kor nin ajnabiga meel loo fuulay kor buu ka eegay xag buu soo fiiriyey waa wareeyey horuu fiiriyey sida ay hawshu sarabka isugu fadhido ama ha ahaato beeraha ama meelaha sarabka la fadhiisanayo mundulayaasha qolka shirarka si uu yahay wuxuu yidhi waxaan yaa sameeyey bahalkooda marka faan ka dhigan mayno laakiin runtii waxay ahayd bahalkii wuxuu yidhi yaa sameeyey waxaan idhi annagaa samaynay all in one baa la yidhaha mubaarak baa la yidhaha all in one yani hadday noqoto design hadday noqoto material selection oo ah the best material aan usoo dooranay wixii localka laga helayo maahe inaan dibadda usoo doorano in workmanshipkii aan u doorano ciddii samayn lahayd oo ajnabi ama soomaali isku jira 3 jinsiyood ama 4 jinsiyood oo Philippine hindi bakistani bengali iyo somali intaasoo isku jira waa waxaan samaysay yani si loo gaaro loo soo waarido technology-ga caalamiga oo caalamka laga shaqeeyo inuu halkeena yimaado is not easy wadankeena laakiin haddana ilaahay waa noo fududeeyay alxamdulillah fadliga allah maskal waxaan arrintan uga faa'iidaysanayaa wixii yani macluumaadka kale website-ka iyo kulli aad ka helaysaan haddana xayeysiinta waa arkayseen waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadda tan maalgashigu ama hoteling ama hospitality industry ha ahaado hotelinka iyo wixii la mida ama ha ahaado resourceka waddankeena waxaan ku boorinaynaa dadka dibadda jooga oo ama gudaha joogaba in ay maalgashadaan waddankooda kalluunka maalgashadaanin ay xoolaha maalgashadaanin ay dhulka maalgashadaanin beerihii maalgashadaanin ay meesha resourcekeena loo celiyo bannaanka intii khadamaad iyo service kaliya laga shaqaysan lahaa way hadda waxa dhici kara inay soo badanayaan serviceka saara kale loo bixiya hotelkaana one of the best uu hadda yahay alxamdulillah sida ka muuqata cunada iyo bahalkeeda hadda saa u daawanaysa waxaan rabaa inaan fursaddan oo kale uga faa'iidaysto inaan idhaahdo u mahad celiyo nimanka odayaasha oo axmed cilmi shido oo hotelkan iskale oo maalgashaday kana soo noqday dibadda Kenya iyo London iyo meelaha ka soo noqday oo maalgashaday waxaan kale u mahad celinayaa oo naswiyi fursadda aanu yani inaan ku exercise garayno khibradayada iyo waxaanu keeni lahayn inaan waddanka ka hadalno aad baan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa oo kaleeto ragga maalgashaday oo hotelkan wada oo ka yimi waddanka Norway again ka yimi qatar ka yimi USA oo Mareykanka ah ka yimi Soomaaliya gudaheeda oo isu tegay oo maalkoodii saan geliyey oo iyaguna maalgashaday dhanka inay tangarayaan hospitality industry-ga oo leader u noqdaan iyaguna waa mahad celinaya yani waa wax fiican oo kudaasho mudan runtii aad baa umahadsantihiin dhegeysi wacan martida sharafkaraad baa umahadsanti asalaamu calaykum aad buu umahadsan yahay injineer cabdulqaadir runtii waxaan leenahay geelu xoolo kuma jiro injineer cabdulqaadir wuxuu ka soo baxbaxay injineerro badan oo dalka dibaddiisa ku gaboobaya siduu dalka ugu soo noqday iyo siduu dalka u qurxiyey waxaan leenahay isagana ilaahay kuu qurxiyo anigu waxaa la iigu doortay munaasabaddan inaan xiriiriyo dalka bilicdiisa iyo barwaaqadiisa iyo quruxdiisaan soo bandhigi jiray dad badan baan lahaa war dalka ku soo noqda marka maanta hawshaydii baa ii taalo farxaddii ugu weginayd dalxiiskana waa ka shaqeeyaayo dad badan oo ajnabi ah waxay yidhaahdeen markaan muqdisho iyo soo marnay hargeysa iyo hoteeladii aan ku soo aragnay puntland kuma arag marka taas caawa waa iga haraysaayo ajnabiga ugu horeysa halkaana keeni doona hoteelkan waxyaabaha uu casriga ku yahay waxaa ka mid ah dadka qurbaha jooga safarka dalka imaanaya iyagoo meeshooda jooga ayay bookinka samaysanayaan haddii ay u baahan yihiin dhardhiqid haddii ay u baahan yihiin cunto haddii ay cabitaan u baahan yihiin qof u yeeran mayaan internet bay adeegsanayaan systemka oo online waxaynu ka sheekayn doona injineerka isaguna hawshaa qaabilsan wax walba uu dalbanayo adeega internetka ayuu ku dalbanayaa oo mar walba online waxaan u mahad celinaynaa axmed cilmi shido oo ka soo dhex baxay isaguna dad badan oo qurbaha maalgashaday ama qurbaha ku raagay oo dalka yimid dalku inuu haddii la maalgashado maanta qiimaha loo hayo iyo sida qof walba u ammaanaya ayaa qof walba loo ammaanayaa marka waxaan sugaynaa qofkii labaad oo casriga dhismahan casriga oo kale maalgashan lahaa sida injineerku xusayna maalgashiyadu waa badan yihiin dib baan ka xusi doonaa afka maalgashadaha waxaa ku hadli doona cumar maxamed cilmi cumar kusoo dhawow gudoomiyaha golaha wakiilada golaha xukuumadda masjid sharafta kale waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka isugu duceeya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdal salaam halkan hadal badan inaan ka idhaahdo uma soo istaagin
hadalkii injineer cabdiqaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey hoteelkan oo shirkadda mubaarak madax ka ah hoteelkan axmed cilmi shido ayaa dhisay hadduu dhisayna waxa weeye dibadda ayuu deganaaye dalka ma deganayn hadduu dibadda deganaa waanu ku dhiirigelinay inuu halkaan maal gashado isagoo aan aqoon oo isagoo da-yaray wilankan ugu dambeysay kabacdina dadkii dalka ka qaxay ahaayoo ka baxay waxa weeye isaguna dhiirigelintii wuu naga aqbalay waxa weeye uga mahad celinayna aqbaliduu naga aqbalay shirkadda mubaarak oo guriga kan iyaduna dhistay oo juhdi badan gelisay oo waxa weeye dhinacyo badan iska taagtay iyaduna haddee way ku mahadsan tahay oo waxa weeye gurigan bilicda badan ayay dhistay juhdi badanna way ku bixisay ballanqaadka ay ballan qaaday inay meesha tan guri qurux badan ka dhisaysana way fulisay waa uga mahad celinaynaa iyadana waxay tahay marka dadka qurba jooga ama dalka jooga waxaanu ku dhiirgelinaynaa dadku maalkii waa hayaan waddanka in la maal gashado si waxa weeye aynu inagu maalgashiga markii la maal gashado hadda raggaan halkaan maal gashaday waxa weeye ilaahay mahadi iyaguna bannaankay ka yimaadeen badankoodu qayb dalka joogtayna way jireen waxay shaqaaleeyeen dad tiro badan oo aad u badan waddanka markii la maal gashado waxa weeye dadku shaqo ayay helayaan marka waddankeenna inaynaan ka tahriibin oo dhallinyaradu aynan ka tegin ayay taasi sababaysaa oo sabab noqonaysaa marka waxaanu ku dhiirigelinaynaa ama dalkaa joogeen ama dibadda ha jireene in waddanka la dheefsado oo la maal gashado oo waxa weeye aynu dhulkeenni dheefsanno si aynu dheef uga helo hadal badan inaan ka hadlo ma doonayo injineer cabdiqaadir oo kambaniga mubaarak madaxu ahaa ayaa hoteelkan faahfaahin ka bixiyey maadaama uu isagu dhisay oo gacanta ku hayay marka waana ku mahadsan yihiin meesha bilicda badan oo quruxda badan oo ay diyaariyeen waana uga mahad celinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa u mahadsan tahay waxaan u yeerayaa maalgashadayaashii cabdirashiid axmed jaamac بسم الله الرحمن الرحيم de halkan ugu soo istaagnaa hadal badan idhaahdo waxaan kaliya aan idiin soo jeedinayaa inaan u mahadnaqo madaxda dowlad goboleedka Puntland xildhibaanada golaha wasiirada shacabka ciidamada Puntland oo runtii aanu sababtaan ugu soo dhiiraday inaan dhulkan aan hantidayada gashano nabadgelyada iyo bilicda waddanku leeyahay marka waxaan halkan u soo jeedinayaa mahadnaq dhammaan shacabka ka soo qayb galay reer Puntland munaasabadan qaaliga ah marka waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin ka soo qayb galkiina dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay cabdirashiid haddana waxaan ku xijinayaa maamulaha hoteelkan inoo maamuli doona cabdixakiin cabdikariin diiriye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سلامتين أنا كوها ليا مع أمام الكوتيلك وحنسول ويني دمان مرت شرفتا هل كان سقوط من عاوة وجوه ريو مدحين كحين كبنتلان مداني عبد الحكيم عبد الله حاج عمر عامي قدوميها برلمانكا أحمد علي حاشي يو قلها وزير هذه حلوانها السماء علماء ودينك aqoon-yahanka bahda saxaafadda iyo gabdhaha bulshada rayidka qurba joogta xubnaha ka jooga hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah xubnaha ka jooga dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dadka ajnabiga ah ee nala jooga iyo dhammaan dadweynaha halkan isugu yimid waxaan leeyahay soo dhawaada waa ka mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga ah nala wadaagteen caawa oo taariikhdu ay tahay 5 bisha shanaad 2017 habeen jimca oo sabti ay soo galayso waxaan isugu nimid munaasabadan oo ah
munaasabad lagu daahfurayo mashruuc maalgashi oo weyn oo ka mid ah mashaariicda maalgashi ee sanadkan dalka ka hirgalay oo halkan caawa laga sharaxay ciddii fikradeeda lahayd iyo kambanigii dhisay iyo mulkilihii maalgeliyey iyo maalgashadayaasha kilaystay oo hadda sidaan u qurxiyey hoteelkan waxaan filayaa kilibyana waa la daawaday dadkuna ishooda ku soo arkeen hoteelkan wuxuu ka mid yahay hoteelada standardka caalamiga ah ee hoteelada dunida maanta loo naqshadeeyo ayuu liiskaasi ku jiraa soomaaliya wuxuu kaga jiraa top 3ga ugu horeeya ama top 5ka puntlandna waa hoteelka koowaad oo ugu horeeya waa hoteelkii koowaad oo noociisa ah oo deegaanada puntland laga dhiso dadka qaarkood oo aan sawirada hoteelka la wadaayo waxay ugu dhaheen saaxiib waan ugu ciyaaraysaa meesha waa Nairobi hadday ugu sokayso ama waa Yurub marka dadku inay aaminaan meeshaan inay garowe tahay oo Soomaaliya tahay oo Puntland tahay in dadku aaminaan waqti badan bay ku qaadatay laakiin caawa dadka dhammaan markhaati ka ah hoteelkani wuxuu kaga duwan yahay hoteelada hore u jiray adeegyada soo kordhiya casriga waxaa ka mid ah qaybaha kilibyada ku daawateen oo ay ka mid tahay security-ga system security-ga aad u diyaarsan ciidan qalabaysan oo wata telefoonada turayaha oo kilomitro la isaga maqlo iyo sidoo kale qalabka mashiinada ay dadka lagu baaro wuxuu kale hoteelku uga duwan yahay oo adeegyada cusub oo keenay ka mid ah wiishka dadka qaada oo aysan weli Puntland horey uga dhicin in hotel wiish laga hirgeliyo kan ka hor waxaa kaloo ka mid ah biyaha warshadaysan oo macaan oo saafiga ah oo hoteelka dhan ku jiro waxaa ka mid ah systemka online-ka oo lagu shaqeeyo oo aysan jirin wax gacan lagu qoro hadday tahay receptionka hadday tahay waytarada iyo adeega dadka customka loo adeego iyo haddii ay tahay maamulka hoteelka dhexdiisa cid warqad wax ku qorta iyo gacan wax lagu qoro ma jirto system online oo electronic oo guddigiisu muuqda oo touch screen baa lagu shaqeeyaa sidoo kale waxaa ka mid ah hoolkan weyn barxadaha waaweyn oo bannaanka beeraha hore ku yaallo systemka intaas oo isku rakiban marka maskaxdii ka soo shaqaysay iyo maalkii la geliyey iyo muruqii la geliyey baa u mahad celinayaa raggii halkan ka hadlay oo kambaniga mubaarak ka mid yahay iyo raggii la xusay oo Axmed Ibn Shide iyo Cumar ay ka mid yihiin maalgashadayaasha hoteelka hadda sharaxay oo naqshadeeyay oo waa dirshiid magacooda ku hadlay iyo staffka aniga la shaqeeya iyo dhalinyarada haweenada oo la shaqeeya iyo dadka asxaabta ah iyo dariska iyo dadka magaalada iyo dadka Soomaaliyeed oo mahad celinaya hoteelkan maadaama aad aragtay waxa ku xiga waxa weeye inaad soo degtaan hoteelkan waxa lagu talagalay dadka qurba joogta inay ku nastaan dadka soo xagaabaxay inay ku qabowsadaan faamilada iyo xaasaska iyo dadka is shukaansada inay ku jimcaystaan dadka cuslaaday in meelo loo dhisi doona jimicsi waxaa jiri doona qayb dabaal iyo nasasho qaybta caruurta waxaa la dhisi doona haddii alla yiraahdo subanbaakadii laga adeegto shopping mall la samayn doona garoomo lagu ciyaaraa la samayn doona marka dhammaantiin waa soo dhaweynaya waan ka mahad celinayaa wada shaqayn wacan aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullah aad u mahadsan yahay maamuluhu fariintiisii waxay ahayd in la soo dego hoteelka dadkana loo tilmaamo maalgashiga inuu isugu nimid fariinta maalgashiga oo aan dhex gashanaynaa waxay tahay hoteelkii waa la maalgeliyey waxa ugu baahi badan oo maanta aynu soo marnay oo ugu baahi badan ay waa biyaha dhulkana oo dhan baday ku shumaan biyaha garowe ilaa iyo burco badooyinka hindiya ayay ayl ka galaan badana waa mahadsan tahay inama tiraahdo maalmo kadibna araad baynu ugu baktinaa waxaan rajayn doonaa maalqabeenno inaan xafladan midda xigta kuwa biyo xidhaana maalgeliyey kuwa dhaaman ama xirfooyin maalgeliyey kuwa dhaqashada xoolaha maalgeliyey inay iyaguna ayna marti qaadaan waxaan hadda u yeerayaa injineer maxamed warsame oo bal nidaamkan online-ka oo la yidhi bookinka lagu samaysanaya adoo Australia ama America jooga ama qadada iyo shaaha aad dalbanaysid online baa ku dalbanaysaa waa xaaladiina ku cusub oo injineer maxamed warsame inuu iyaduna waxay ka yiraahdo dadka waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada xildhibaanada iyo dadka sharafta leh barfil isugu yimid haddaan anigu idin sheegay kambanigayga waxaa la yidhahdaa Infinity Security and Hotel Supplies wuxuu ku yaalaa Nairobi 10 sano ugu dambeeyey ilaa sanadkii ugu dambeeyey waxaan hubeelo badan kala shaqeynay Hargeysa Xamar iminkan waxaan ku faraxsanahay inaan garowe nimid oo Cabdirashiid uu keenay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan wixii aan ku dhaanay oo
125 hotel ka badan East Africa aan ku xidhnay ilaa 4 kun oo hotel Mareykanka ku yaala oo systemkan aan anagu Africa oo dhan masuulahay aan ku xidhnay oo hadda maanta Puntland Garowe ay tahay meeshii ugu horeysay Puntland aan ka bilownay systemka hadda la sheego waa laba nooc mid waa BMS waa ka reception ku shaqeynayo online baa lagu soo booqan garaysan karayaa midna waa POS waa ka cuntada hal iyo dus doono waxa ka baxaysa meesha in mar dambe waqti markuu yimaado oo isagoo wax qoray uu tagay kitchen oo waranayo oo cuntada ay cuntaaysi mar alla markuu waqti ku teebada number bay yaranayaan number ku imanaya teebada soo gelinaya cuntadii toos laga soo baxaysa kitchen sharaabkii cafeteria hadda intoona marka cuntada diyaar noqoto looga baana in waqti dalbaday la doono waxa dhacaysa in rasiirkaas soo baxay ku qoran yahay teebada markii cuntada lahaa rasiirkii waqti dalbaday haddii waqti dalbaday mashquul yahay waqti kala qaadaya marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan nabi afrika cashiru gumisay systemka gelinay shaqaalaha tirigelinay anigu 25 experience hotel ka leeyahay iminka waxaan furnay haddana geeso ka badan garan double hotel oo daabshi leeyahay ambassador laba kun saddex aniga furay xamar Makka Mukarrama Al Jazeera waxaa soo aniga furay systemkii lagu xiriyay marka maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan Garowe iyadana aan ku soo fiiriyo oo aan ku bibo shaqaalaha aan arkaysaan caawa ilaa laba wiil bay ku dhigeen ku jireen waad ogtihiin waddankeena service-ku waa waxyaalaha aad ugu liita waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan idin sheego meel kasta oo tagno ma doonayno inaan wax kasta isku koobnaano waxaan jecel lahay haddaan xamar tagno haddaan Hargeysa tagno inaan dhalinyarada IT-ga bartay aanu partner noqono oo aan wax kasta isku koobin waxaan idin haddana ku faraxsanahay inaan team jooga Puntland oo IT-ga oo hadda laga bilaabo aan tirangaleeyo oo shaqada qabanayo oo iyaguna meelaha kala duwan soo socda idin geli doona oo aan aniga la iibanayn saas aan idin sheegi doonaa marka aad baan ugu faraxsanahay teamka Cabdirashiid iyo Cabdi iyo Usmaan iyo ay yeeleen marka reer Puntland waxaan leeyahay maanta magaalooyinkii kale ee Soomaaliya oo ka bigrasa waa hudeel caalamiya waa hudeel muddo badan waa hudeel cuntadiisu ka duwanaan karto cuntooyinkii kale ee aad ka cunteen Garowe oo shaqaalo Soomaaliya cabisan iyo kuwa ajnabi ay yimaadeen marka takeeyn ku koronaya waxa weeyaan Cabdirashiid raggiisa shaqadooda ay qabsadeen waxaan idinka baahan yahay supportkiina marka wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh intii hore waxay ahayd arar iyo sharaxaad waxaynu meesha isugu nimid munaasabadda hadda waxaa inoo furaya maayarka caasimadda xasan maxamed ciise kusoo dhow bismillaah madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland gudoomiyaha baarlamaanka Puntland isimada golaha wasiirada Puntland xildhibaanada Puntland saraakiisha dowladda aqoon-yahanada injineerada iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan si weyn ugu faraxsanahay in caawa aan Garowe ka furayno oo ka daafurayno hotel ka mid ah hoteelada maaragtay ugu casrisan anigu oranay Soomaaliya Afrikada bari hoteelada ugu casrisan mid ka mid ah ka daafurayno ayaan aad ugu faraxsanahay wax badan baan waxaan u gacanahay in maaragtay qurujoogta inay dalka ku soo noqdaan inay maal gashadaan hadda horena maalgelin weyn bay u sameeyeen hoteelo badan baa maaragtay Garowe laga furay kanuna waxa weeye kuwa ugu casrisan oo caasimadda Puntland ku yaal oo ku soo biiray waxaan oran karaa wuxuu leeyahay ugu yaraan tasiilaad ayan lahayn hoteelada Puntland ka jira buu leeyahay hoteelkan sida caawa naloo sheegay hadda waxaan leenahay maqaamkii aan la rabnay in maaragtay hoteelada Garowe ay gaaraan waxaan leenahay cagtay saareen baan leenahay waa la soo gaaray
hadda wixii ka dambeeyana waxa weeye in sidaan lagu sii socdo oo aynu maaragtay caasimadda puntland inay maaragtay meeshaynu u soconnaa waa inay hoteellada dubay ku yaal oo kale waa inay noqdaan wey magaaladan sida aad ka warhaysaan waxay u fidaysaa si xoog leh waana magaalada soomaaliya bersentajka fiditaanka oo maaragtay yudanka ugu horreysa weeye xagga fiditaanka sanadkii boqolkiiba inta ku korodha magaalada ugu horreysa weeye sidaa darteed waxay istaahishaa in mar hadday sidaa tahay guryo casri ah oo noocan ah oo hoteellada ay ku jiraan inay ku soo kordhaan aad iyo aad bay muhiim u tahay mana jiro caawa qof odhan kara waxaan ku haystay maaragtay dibadda oo tasiiraad ah baa iga maqan intuu hoteelkan soo dego ma jiro waan odhan karaa waa waxaan jirin wey qofka hoteelka degan yurubta galbeed ku yaal ama maraykanka degan ama carabta degan ama waddamada horu maray oo dhan waxa weeye wixii uu ka helayey ayuu caawa ka helayaa garowe garaan hotel waa sababta aan rabo inaan idhaahdo waa mahadsan yahay axmed cilmi shiddo aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxaana leeyahay xoolaha allah kuu barakeeyo intii horay maalgelinta u samaysana allah u barakeeyo inta damacsan hoteelkan iyo kuwa la nooca inay samayso aan idhaahda iyo kuwa kasii casrisan na waa soo dhaweynaynaa waana sugaynaa haddana waxaa gacanta lagu hayaa hoteello waaweyn oo aad iyo aad aanu maaragtay isu leenahay wax weyn bay magaaladan ku soo korrin doonaan ayaa jira oo gacanta lagu hayo kanuna waxa weeye tasiilaadka caawa la yidhi waa maaragtay wuu leeyahay waa dhammaystiran yahay haddee wiishka hoteelkii ugu horreeyey oo caasimadda puntland ku yaal weeye biyaha macaanna sidaas weeye markaan iska dayno inuu maaragtay la yidhi 100 gaari oo maaragtay baakinkiisu qaadaa waxa weeye elevatorka waa kii ugu horreeyey oo leh oo puntland ku yaal service kale oo maaragtay la sheegay oo xagga amniga iyo xagga maaragtay adeega ah isagana waxa weeye haddii waa ka duwan yahay hoteellada waxaan rabnaa hoteellada noocan inay magaaladan ku soo bataan annaguna waxaan ballan qaadaynaa wax allaale waxay nooga baahdaan hoteellada noocana oo kan ka mid yahay inaan u fududayno si maalgashigu oo u noqdo mid maaragtay ay ku dhiiradaan dadka gudaha jooga iyo dadka dibadda jooga caasimadda puntlandna waa hooyada soomaaliya cid walbay u furan tahay qof kasta oo soomaaliya iyo ciddii ajnabiga danaynaysa dhammaan waa ku soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hoteelkana waxa weeye haddee anigu baan ugu horreeye ka badamayno inuu maaragtay dallaacan dhaco anaga qolkii ugu horreeya anaa kiraysanaya sababta aan u kiraysanayaa waxa weeye waa inaan maaragtay ka faa'iidayso adeegan ayaan lahaan jirin magaaladu inaan arko baan rabaa haddii aan la idmo marka qofka u horreeyey buga caasimadda anoo ah caawa anaa kiraystay hoteelka qolkii u horreeyey gurba joogta iyo maaragtay hay-adaha iyo dhammaan dadka ganacsatada ah kulli waxaan leeyahay ku soo dhowaada hoteelkan casriga ah ee horay aan uga jirin puntland oo caasimadda puntland caawaan ka daafurayno waxaana leeyahay annagoo aad iyo aad maaragtay ay sharaf noogu tahay yani marka farxad baa iga badatay hadalkii maaragtay waxaan la kari waayey in hoteelka nooca uu yahay aan si weyn ugu faraxsanahay weeye mudane madaxweyne iyo mudanayaal waxaan leeyahay hoteelku si rasmi ah ayaa garaan hotel inuu ku furan yahay halka caasimadda haddana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi maxamed isaguna ballanqaadyo badan samayn doona haddii alla idin بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينه اسمه dhaqanka oo hadda Suldaan Saciid meesha ka fadhiyo maamulka degmada
aqoon-yahanada dhalinyarada ganacsatada haweenka saxaafadda madaxa bannaan dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib caawa halkan waxaynu isugu nimi xafladdii daafurka hoteelkan casriga grand hotel aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa warka badankiisii waa laga hadlay laakiin dhowr tifood baa horanayaa mar koowaad waxaan u mahadnaqayaa milkiilaha hoteelka axmed cilmi oo runtii ku dhiiraday inuu sameeyo hoteelkan quruxda badan lacag badan la geliyo khayr allah kaasiyaan leeyahay waxaaga allah ku barakeeyo waxaan kaloo mahadnaqayaa ganacsatada dhalinyarada ah oo isku tagtay dadku haddii oday la yidhaahdo waa ka xanaaqaan dhalinyarada ah oo isku tagtay wowla maal gastay waa maasatiin baan leh waxaan kaloo mahadnaqayaa injineerka cabdiqaadir shirkadda mubaarag oo runtii farsamo qurux badan oo casriya oo loo baahnaa sameeyey waxaan leeyahay shirkadda mubaarag ha lagu daydo inta haddaan ka gudbo waxaa loo baahan yahay dalka in la maal gasto waaba laga sheekeeyo oo tigayo hadda isagu dalxiiska iyo qaabilsan iyo sheekooyin badan baa la maray waad ogtihiin haddaad lacagtaada bangi cid leh iyo meelay ku dhammaanaysa aad aqoon dhigatid oo sida hadda maantii lagaa shekeeyay waa lagaa xanibay meel lagu sheegay aan la aqoon kuwa badan oo ganacsataa oo taajiriin ah dibadaha lacaga dhigtada lacagtoodii waayay saasoo ma ogidin ama laga xanibto marka intaa wayna ka xaniban adduunku meel way socdo ma taqaanin lacagta dhulkiina hooyo geliya intaasaan ku boorinayaa kuwaas haddaan intaa u soo noqdo magaaladan Garowe ama gobolka Nugaal ama Buntland guud ahaan waa nabad waxayna u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed oo maal gashato hadda magaaladan waxaynu daafurnaa asbuucii hore wadadii Garowe iyo ay oo hadda caasimadii ahay oo meeshii Soomaaliya dastuurkeeda iyo dowladnimadii ku meelgaarkii laga saaray ahay ay iyo Garowe ay tibix noqotay oo kaabiyaashii dhaqaalaha la sameeyay waxay la tahay in Soomaalidu ka harin Garowe la tago saas oo ma ahan arinta waa bawaadinaynaa dadka Soomaaliyeed oo baaqana in la soo dago maxaa yeelay waa magaalo Soomaaliyeed waa magaalo aan cidna kala lahayn dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo ajnabiga degaya qof walba furan tahay innagu hadda Yurub iyo waxaan deganahay Ameerika dadku haddii ay diideen adduunka hadda waa isdhex galay waxaas waxay ku yimaadeen iskama imaan marka hore weelaha qadartiis laakiin ammaanka oo gacanta ay ku hayso dowladda Puntland iyo shacabkeeda ku yimaadeen dowladda Puntland waxay diyaar u tahay inay har iyo habeen ka shaqeyso ammaanka inay soo dhaweyso ciidan la ciidi maal gashanaysa iyo ciid dalxiis iyo maalinta intaba annagana waxaanu ballan qaadaynaa maamul gobolka Nugaal haddaan nahay annaga iyo tiimka degmooyinka iyo ciidamada iyadu inaanu ka shaqeyno nabadgelyada una adeegno dadka shacabweynahana waxaan ka codsanayaa in laga shaqeeyo maamulada iyo ciidamada nabadgelyada ammaankan laga wada shaqeeyo maxaa yeelay haddaan nabad la helin inteennaa sucaawa iska wada nimaaneen waxaan mahad gaara u jeedinayaa ciidamada madaalayaasha oo har iyo habeenba u heella inay ammaanka ilaaliyaan oo caawa ay ku sugnaatay dartood ilaahay dartiis baa ku sugnaatay laakiin iyagu ay iska lahaayeen in halka ammaan loo joogo intaasaan kusoo gabagabeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu garowe waa lagu xadeeyada marka mar haddii meeyarkeygii iyo gudoomiyihii gobolka iyo hadleen kolley way loogu dhammayd baan u malaynayaa laakiin mar haddii la magac rabay kelmadda mahadcelinta waa ku odhanayaa maalgashayaasha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maalgashayaasha maalgeliyey mashruuca kan hoteelada ah waxaan kale u mahadcelinayaa injineer cabdiqaadir oo runtii aqoon dheeraada aan leeyahay nin isagii shirkadiisa waa nin samir badan oo aan hore usoo wada shaqaynay oo runtii qudhiisu qayb ka ah horumarka Puntland waayo shirkadadaa jira ama maxay tahay dad shakhsiyaad doona faa'iido u gala meelaha laakiin isaga waxaan ogahay waa la soo wada shaqaynay airportkan Garowe waa kan bariga ka shaqayn jiray waxaana uu kaga tegey isagoo tiisa ku wada oo kolley ilaa close ilaa 600,000 baa maxay tahay
kaga maqlay markaa ka tegey uu ku dhammaystiray marka sabirkaas kambarigaas oo leh iyo cabdulqaadir isna aad baan ugu mahad celinaya waxaan leeyahay maalgashayaasha waddankan puntland waa amni waa nabadgelyo waxa weeye ku soo dhiirada kan iyo kuwa lamidaba waxaanu maxay ahayd ku faraxsannahay inaad timaadaan oo dhistaan horumarka dalka horumar ballaaran baa ka socda wadaalada qodob maaha beero u baahan yahay siduu tiga sheegayey dariiqyo kale yaryar buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay maxay ahayd warshado intuba dhulkeenu puntland waa hodan waana ka fuli karaan intaas sida laydiin sheegay runtii ku soo dhiirada gacmo furan baanu idinku soo dhaweynaynaa dowladda qudheedu waxay ballan qaadaysaa intii awooddeeda inay dhiiri geliso ciddii maal gashanaysa puntland yahay ayaanu oran karaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa dowladdu ballan qaadaysaa intii wixii kaga aadan ama dowladda hoose ha noqoto ama maaliyadda ha noqoto ama maxay tahay security-ga ha noqoto wixii tasiiraad ee kaga aadan ay ku dhiiri bolosiga dowladda puntlandna waxay tahay inay dhiiri geliso maalgeliyayaasha imanaya oo dalka waxgashanaya inay dhiiri geliso ayay ballan qaadaysaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay wasiirku waxaan ka cudur daaranaynaa waktiga oo la codsaday in la soo koobo dad badan oo gacan ka geystay hoteelkan dad badan oo mudnaa in la siiyo ama qaybo badan sida ganacsatada dhallinyarada haweenka aqoon-yahanka qurba joogta intaba waxaa weeye hadalkiinnii waxaa isku qaatay intii idinka horreeyey haddana waxaan siinayaa kelmaddii isimada suldaankan ku soo dhoweeya suldaan siciid maxamed garaasa suldaan ku soo dhowow اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم خيارته شرفت له وهلك سقوطني ومدحنا كحيانك بنتلاند مدحدير yahay بالوين يمدنا يالب waxaan ku salaamayaa salaanta lagu isku duceeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad ilaah baa mahad leh xafladan iyo gurigan iyo munaasabadan iyo horumarkan waa u mahad celinaynaa dadkii ka qayb qaatay oo meel kastaba ha ka qabteen hadday dhismo tahay iyo hadday tahay guri dhisid iyo maalgelin kharash bixin waana u ducaynaynaa intaa kadib innagu hadda faynalka baanu ducada leenahay wixii dood ama maaragtay de waa xafladoo ma aha dood kale ma jirte waa ammaan iyo bogaadin iyo maalin farax wey waxaan rabaa inaan wax yar dib ugu noqdo qofba wax buu qabtay dadka bini aadamkaana waa saas wax la isu keenayo gurigan waa dhismo waa iswada celinayaa waa iswada kabayaa mid baa khashaba mid baa bulukeetiya mid baa shuba bini aadamkuna waa saasoo kale isu kabayaayo markii qofba wax qabto sida shinnida malabka samaysa ayaa wax wanaagsan oo macaani ka soo baxa waxaan is leeyahay in badan wax la moog yahay baa jira dalkan waynu isla ognahay burbur baa dhacay halgan aan loo soo marin gobonnimo doonkiibuu soo maray waa la dhintay waa la dhaawacmay kharash baa la bixiyey caqli iyo maskax iyo nafba waa lagu baxshay weli ma arag dadka reer puntland iyagoo yidhaahdaan war haddaad waxaynu ku raaxaysanayno dadkii u leeday aynu faataxada u mar kuwa dhaawacmaya aneegin weli ma arag waa nasiib dar dadku waxaa fiican inuu dib isugu noqdo waxaanaynu haysanno sidee ku yidhaahdeen ilaahay baa
waxaan hubaa oo rag meesha fadhiya markhaanti iga yihiin laba xubnood inaanu bixinay oo laba reer oo duday oo riwaatadayna aanu ku soo celinay intii ka dambaysay ma aanu nasan markii laba dowladood isbedelayaanba khalkhal dhaxaa jira annaga gacanta ku qabanna faanna maaha waxaa la yidhi olayga hashacdo badnaanaa gaboobay markaasuu dadka waryaara xoolihii war miyiraa la jooga war baxsade maanti dambaa leeyahay wareeda qayladaad waa lagu badatay aabe dadkii uu dhalay laftoodii dadku dee iska acraabi ilaah baa ku dhaaranay jubuur dambe hadday kaa soo baxdo waa kaa guurayna sida iyadaba tabanaad deed ku raacdana malhid inaga hormariya laakiin waxaad yeeshaan meesha wax dhigaysaan ilaahay hudeerka ha barakeey dembigeenna iyo kiwaadkeenna allaha dhaaf daladambaateed allah inaga xijaabo ilaahayow rabbigow abaartaad naga saartay waa kugu xamdinay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahu noo siyaadi ilaahow nabad iyo roob baanu kaa barin ilaahu cafi iyo caafimaad baanu kaa barin ilaahu camal saalix iyo cibaado goorgaadhiyo canaano barag kale baan ku weydiisan khaatimadeeda ilaahu khayr ku khatim ilaahu imaanka lagu dilo lagu noolee ilaahu dadkii shaqadaan qabtay ilaahu u barakay ilaahu khasaarin rabbigow soo afmeeraynaa xafladeenii qiimaha badnayd waxaan ku dhiirigelinaynaa qurba joogto dalka inaysan xil keliya u soo doonane axmed oo kale ay ku daydaan oo hoteelkan oo kale ay noo dhisaan magaalooyinkana waa tartane magaaladeennii ganacsiga boosaaso waxaan ka sugaynaa hoteelkan oo kale caasimadeennii qarro waxaan ka sugaynaa iyaduna hoteelkan oo kale gaalkacyana iyaduna sidoo kale aanu ka sugaynaa ilaa iyo gebdogob ilaa iyo xaafuun ilaa laas qorayna waa inoo tartan iyo hoteelkan oo kale baan raje wasiirada isimada ugu horeeya hadda fadhiya sudaanka oo sida u sheegaan qabo brotokoolka ay leeyihiin isimada aan garanno puntland dhismaheedu waxa ugu horreeyey isimada ugu horreeyey haatana way noo fadhiyaanoo wax weyn bay nala qabtaan waxaan kaloo salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha adeegyada badan oo caalamka la jaan qaadaya hantidiisa geliyey maalgashayaasha iyaguna hantidooda geliyey inay hoteelkan ka ganacsadaan oo ku ganacsadaan cabdirashiid iyo tiimkiisa injineer cabdiqaadir oo run ahaantii shaqo badan aan hadda ogahay dhul cidlaha oo aan magaaladeyn ahayn kuwa u ka dhisaan ogahay kuwa u garow ka dhisay kuwa u boosaaso ka dhisay dhul badan oo maraykan iyo afrika iyo dunida caalamka daafaheedaba uu wax weyn runtii oo hawsha uu yaqaan oo security-ga ah uu soo qabtay isaguna uu ku mahadsan yahay wuxuu kaloo sheegay inuu tababarayo
rag garow jooga oo ay fududaanayso sida loo helo in fariintaasi ay gaadho inta maqasho iyo inta dhegaysanaysa inta daawanaysa waxaan ku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad inta hawshan qabatayba aad bay u salaaman yihiin waana hambalyeynayaa ilaahayna waxaan leeyahay aan ka jaasan mariyo isugu dawlagu بسم الله الرحمن الرحيم aan rabaa inaan u mahad celiyo ganacsatada runtii ku bahowday maalgashiga hoteelkan qiimaha